Kusoo dhawaada cashirkii labaad ee barashada HTML kaasi oo ahaa cashir aynu ugu talagalnay ama course aynu ugu talagalnay inaynu ku baranno barashada web development-ga. Cashirkii kan ka horreeyay waxaynu ku baranay basic HTML elementska kaasoo ahaa asaaska HTML file-ka ama waxyaabaha asaasiga u ah HTML documentska. Waxyaabihii aynu soo aragnay ee aynu kusoo baranay cashirkii kan ka horreeyay waxaa ka mid ahaa h1, h2, h3 oo ahaa headingska iyo paragraph links waxyaabo badan ayaynu kusoo aragnay tableka listska formska inputka imageka video sidaad sawir usoo gashan lahayd sidaad video usoo gelin lahayd table saad u samayn lahayd list saad u samayn lahayd oo labadaba aynu soo aragnay unordered list iyo ordered list formskii iyo inputkii baynu soo aragnay. Haddii cashirkan uu yahay kii kuugu horreeyaad aragtay waxaa ka horreeyay cashirkan ka horreeyay baa jiray oo aad kusoo baranaysa waxyaabaha halkan kaaga muuqda oo dhan dhammaantii iyo qaabka aad u bilaabaso code editorkaaga iyo saad fileka u abuuranaysa iyo waxyaabaha ugu horreeya ee barashada HTML-ka aynu kusoo qaadanay. Markaa muuqaalkii hore ayaad soo daawan doontaa haddii uu yahay cashirkaagii koowaad eed aragtay, haddii kalena halkaas ayaan kasii wadi doonaa. Cashirka maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa semantic HTML elementska oo ah waxyaabaha sida tooska ah u macneynaya macnaha ay sameynayaan. Waxaana ka mid ah header, footer, article, section, waxyaabo noocaasa. Waxyaabahaas ayaa la yidhaahdaa semantic HTML elements. Waa shay magaciisa iyo waxa uu qabanaya ay isleeyihiin. Tusaale ahaan header waa qaybtii headerka aad ku sameynaysay. Tusaale ahaan footerna waa qaybta hoose ee fileka ama documentigaaga ama website-kaaga qaybta hoose ayuu noqonayaa footer. Article waa qaabkaad article ama waxyaabo usoo gelin karto. Sida programmada kale ee computerkuba ay mar walba tadawur iyo isbedel u sameeyaan, HTML-kuna wuxuu sameeyaa markasta tadawur ama isbedel buu sameeyaa. Kan aynu barananaana waa HTML5. marka HTML5 waxay la timiday waxyaabo badan oo cusub oo ay ka mid yihiin semantic elementska halkan inooga muuqda sida article, nav, footer, aside, section, summary, main, mark. Waxyaabahan oo dhan HTML5 ayaa wadata. Marka HTML5 waa ka aynu baran doono ama aynu course-kan gebigiisaba ku qaadananay cashirkii hore iyo kanba. Markaa semantic elementskan waxaynu ku qaadan doonaa tusaalayaal waxyaabahay qabtaan sida loo isticmaalo iyo dhammaantoodba waxaynu ku qaadan doonaa tusaalayaal. Qaab dhismeedkan waa muuqaal guud oo ku tusinaya qaabka ay u kala shaqeeyaan ama meelaha ay ku kala habboon yihiin. Filekii marka uu sidan yahay ama browserka uu kasoo muuqanayay qaybtan headerku waa qaybtii sare ee ciwaanka iyo waxyaabahaas ama navigationka iyo dusheeda ahayd. Qaybtan hoosena waa navigation barka waa meelaha yare home, contact, address, waxyaabahaas lagu qoro ciwaanka sida homeka, contact, about us page. Waa page-yada marka waa kuwii ku hagayay page-yada website-ka kuusii kala tilmaamayay ama marka aad ku dhufato aad meel kale usii gudbasay. Section iyaduna waa qaybtan oo waa section. Aside waa dhinac. Article waa waxyaabo article oo kale aad qorayso. Macnaha qaabkan ayuu uga muuqanayaa qolfoofkiisiiba hadda ama qaab dhismeedkiisiiba halkan inooga muuqda. Footerna waa qaybta ugu hooseysa ee website-ka ee lagu soo qoro tusaale ahaan copyright-ka website-ka xilligii la sameeyey ama waxyaabo yaryar ama email ama meelaha contacts waxyaabo noocaasa. Waynu arki doonaa muuqaalkan dhexdiisa ayaynu ku arki doonaa qaabka footerka loo sameeyo, section sida loo sameeyo iyo headerska, navigationka waxyaabahaas qaybo ka mid a waynu arki doonaa isla muuqaalkan. Okay, hadda waxaynu bilaabi doonaa qaybtii typing aynu qoranay codeka aynu qori doonaa. Marka haddii aad hore usii diyaarsatay sidii cashirkii hore waxaynu u baahannahay inaynu samaysano file iyo folder baynu marka hore sameynaynaa. Folder markaynu sameyno ama folderkii hore aynu haysanay baan ku dhex abuuri karnaa kolba sidii adiga kula wanaagsanaata. Okay, halkan desktopka ayaynu nimid. Desktopka marka waxaynu ku sameyn doonaa folderka iyo fileka sida loo abuuro loo sameeyo iyo qaabka Visual Studio Code-ka loogu furo. Hore ayaynu usoo aragnay cashirkii hore. Marka halkan aynu ku samaysano new folderkan marka waxaynu ka dhigan doonaa magac baynu u samaysan doonaa.
aynu nidhaahno lesson 2 maadaama cashirkii labaad ee html-ka uu yahay. kadib qaabkii loogu furanayayna horey nuu soo aragnay. marka kan ayaan soo jiidayaa, waxaan dul keenayaa Visual Studio Code marka saas ayuu igu furan yahay. qaybtana iska xidhayaa. marka halkan aynu nimaadno waa kan lesson 2 folderkii aynu samaynay. marka halkan ayaynu file ku sameynaynaa. filekana waxaan u bixin doonaa index.html. magacaad rabtaa ayaad u bixin kartaa, laakiin anigu kan ayaan hadda u bixinaya. marka waxaynu u baahannahay inaan halkan extension soo dejisano. extensionkaas oo inoo sahli doona inaynu sameyno boilerplate-ka html-ka uu inoo sameeyo. marka waxaynu odhan doonaa html boilerplate. marka extensionkan ayaynu isticmaali doonaa. extensionkan marka wuxuu inoo sahli doonaa in boilerplate-ku marka aan sidaa html u qorno uu inoo dhammaystiro. marka waa kan html5 kan ayaan imanaynaa. saas wakaas uu inoo dhamaystiray. qaybahan meta tagska iyo doc typeka qaabka loo sameynayna cashirkii hore ayaynu kusoo aragnay. marka kanna kusii raagi mayno. halkan ayaynu ka bilaabi doonaa cashirka maanta, kaas oo noqon doona committee haddii aan ka bixiyo nav ama navigation. navigationkaas oo ah qaabka loo sameeyo navigationka. navigationku waa qaybta sare ee website-ka ee homeka, contact address, waxyaabahaas about page, pageska magacyadooda lagu soo qoro. marka intay rabaan ayay noqon karaan. marka qaabkan waad u qori kartaa anchor tag. marka hashtag baan halkaa dhiganaynaa maadaama aanan wax linkiya aynaan hadda haysan. halkana aynu nidhaahno home page, home iska dheh. kadib inta linki ee aad rabto baad halkan ka dhiganaysaa, 2, 3, 4 midkii aad rabto. marka kanna waxaad inooga dhigtaa about pagekii wey. kanna waxaad inooga dhigtaa contact page, contact. marka 3dan linki ayaynu sameynay ama navigationka ah. marka navigationka waxaynu ku dhex abuuri karnaa oo aynu sameyn karnaa nav oo ah html semantic elementiga aynu hadda soo aragnay ee sharaxaadeeda. nav marka navkan ayaynu dhex dhigi doonaa intan aynu soo qornay imika. halkan ayaan ku paste garayn karnaa. marka navigationkii wuxuu noqonayaa 3dan. marka waxa kaloo aynu soo dejisan doonaa html-ka. waxaan ka wadaa extension ayaynu soo dejisanaa. extensionka oo inoo suuro gelinaya markasta marka aynu save garayno in aan halkan ka furan karno oo aan open with live server aan samayn karno sidii aynu cashirkii hore kusoo aragnay. markasta folderka ayaynu furanay, kadib ayaynu mataqaanaa sameynanay inaynu halkaa kasoo furno. markaas si ay noogu fududaato live server ayaynu soo dejisanaa. live serverkanaan install odhanaynaa. live serverkiina waa kan. marka kan ayaad install odhanaysaa. marka live serverkan wuxuu kuu suuro gelinayaa in aad adiga oo aan ka bixin isla pagekii html-ka aad furi karto browserka. marka hadda ayaynu arki doonaa kaasna sida aynu mataqaana u isticmaalno. waa inoo soo degay, waqti badan ma qaadanayo. sidaa uu yahay baad right click ku siinaysaa open with live server. kan mar ayaad gelaysaa. kan inaga xidh, qaybtana inaga laab. marka wuxuu inoo furi doonaa qaybtii browserka. waa kan qaybtii waa navigationkii waa kan oo waa inoo soo baxay. waa home, about, contact. hadda wax stylina ma laha, saas darteed way isku wada dhow yihiin oo wax space ma laha. marka qaybta stylinka ee css-ka ayaynu ku arki doonaa qaabka loo kala fogeynayo, qaabka aad kalara ugu sameyn doonto iyo qaabka aad si qurux badan kusoo bandhigi doonto. okay, haddii aynu ku noqono Visual Studio Code-kii waa kan navigationkii way naga aragnay. waa qaabkaasaad u sameyn kartaa, waad ka badin kartaa. halkanna markasta linkiga ayaad ku qoraysaa. marka linkiga home page-ku haddii aynu ka dhigno index.html waa pageka ama landing pageka, home pageka qaybta koowaad. haddii aynu rabno inaynu abuurno faylal kale waxaynu sameyn karnaa page labaad baynu abuuranaa oo ah about.html iyo contact.html. marka labadaa page kale ayaynu sameynay. marka si ay iskugu mid noqdaan qaybtan ayaynu koobiyeynaynaa. mid kasta halkan aynu ku paste garaynaynaa. bartaa marka aynu ku qorno waxaynu odhan doonaa halkan h1 kani h1 ayaynu odhan doonaa.
h1 kani markaa wuxuu noqon doonaa welcome to contact page. Welcome waa qoraal yaroo aynu kaga duwana un kuwa kale. Welcome to contact page. kana sidoo kale aynu nidhaahno welcome to about page. halkan baynu ka dhigi doonaa about. saasay ku kala duwan yihiin. marka linkiyadani hadda iskuma xidhiirsana. qaabkaad iskugu xidhiidhinaysaana waxay noqon karaan halkan haddii aynu index ku qornay, halkanna waxaynu ku qori doonaa about.html, kanna waxaynu ku qori doonaa contact.html. marka haddii aynu ku noqono live serverkii ama halkan haddii aynu tagno automatic ayuu inoogu save gareeyey. marka waa kan home about, waa ka welcome to about page. kanna wuxuu noqonaya kan weli maynu xidhiidhin, marka waa inaynu ku noqonaa html-kii. intan ayaynu mar labaad koobiyeynaynaa maadaama ayna qaybtan hore aynaan samayn. mar labaad halkan tan ayaa imika actual ah, tan ayaynu dib ugu save garaynaynaa. okay, marka haddii aynu ku noqono browserkii, contactka markaad tagto welcome to contact page, aboutka markaad tagto welcome to about page, homeka markaad tagtana waa wax inoogu qoran ma laha. marka homeka laftiisa aynu ka dhigano h1 iyo qaababkana hore ayaynu ugu soo aragnay cashirkii hore headingka sida loo sameeyo. welcome to home page. welcome to home page. okay, saasay ku kala duwan yihiin. kan waa pagekii koowaad, kana waa about page, kana waa contact page. marka pagekana qaabkaas ayaad u samayn kartaa, iskuguna xidhi kartaa. marka haddii aynu ka gudubno waxaynu ku shaqayn doonaa un qaybtan indexka ama home pageka. haddii aynu ka gudubno qaab kale ayaad u samayn kartaa oo ah isaguna inaad nav samayso kadibna aad unordered list ama ul samayso kadibna lis aad samayso oo aad liska kusii dhex qorto markasta intan mid kasta aad sii dhex geliso nav listig ama nav itemska aad saa ugu sii dhex qortana waad kartaa. marka hadba sidii aad adigu u diyaarisa unbay noqonaysaa. kanna halkan inoo dhig. qaybtan kale contactigana inoo soo qaad, isagana nav item baynu u sameynaynaa ama list item. kadib qaabkana waad u samayn kartaa oo waxay ku kala duwan yihiin malaha. aynu refresh sameyno. waa kan okay, waa kan welcome to home page. h1 tii aynu qornay weey. marka qaabkan iyaguna horizontal way qaybta sare, qaybtana waa vertical. marka sababta keentayna waa display propertieskooga, kuwaasna waxaynu ku qaadan doonaa cashirka dambe ama course-ka dambe css-ka. kaas ayaynu kusoo qaadan doonaa. marka labadan qaab waad u samayn kartaa oo inaad qaabkan u qorto ood nav qorto ood ul li iyo inaad mataqaanaa sidan u qorto labadaba waad kartaa. qaybta navka haddii aynu halkaa kaga gudubnana waxaa inoogu xiga waxa isaguna jira figure and fig caption. figure and fig captionkuna waxa weeye qaabka aad u samaynayso sawirka aad qoraal ugu qabanayso. sawir baad samaysay, sawirkaasaad rabtaa inaad qoraal kusii hoos ladho, markaas qaabkan ayaad isticmaalaysaa. kadib halkan ayaad imanaysaa figure markaad qorto isfuro isna xidho ayaad haddaba halkan waxaad ku samayn doontaa imagekaasi oo noqonaya sida imagekii caadigeena soo aragnay. sourcekuna waa halku ka imanayo. marka imagekana hore ayaynu usoo aragnay qaabka loo soo gelinayo. marka waxaynu ku dari doonaa fig captionka. fig captionkuna waa kan. marka wuxuu noqonayaa commentiga ama qoraalka yare hoosta kaga ladhan. marka sawir dheh, tusaale ahaan sawir ama buur ama wuxuun buu noqon karaa. laakiin haddii aynu rabno inaan sawir soo gashano aynu tagno page kale aynu furano. okay, halkan googleka ayaynu ka baaran doonaa imagekaas waxaynu kasoo qaadan karnaa midkaynu rabno. laba qaab ayaa loo soo gelin jiray. labada qaabna markaa midna folderka waa inuu kugu jiro, midna waa inuu aad internetka ka keensato. marka kan ayaynu isku dayaynaa bal inaynu soo gashano oo aynu isticmaalno qaabkii labaad ee aynu internetka uga soo qaadanay. marka copy image address baynu leenahay. waxaynu kusoo noqonaynaa isla meeshii
sourcega ayaynu ku paste garaynaynaa linkiga aynu soo helnay, kadib fig captionkuna wuxuu noqonayaa wixii mataqaanayay qoraalka hoosta imanaya. marka aynu nidhaahno green, okay, magacaynu rabna aynu green ayaynu odhan karnaa, greenland, okay, and open with live server. live serverka ayaynu ku furanaa. marka waa kan, qaybtan waa qaybtii sawirka ahayd, qaybtanna waa qoraalka fig captionka ahaa. marka qaabkanna mataqaanayay waad u isticmaali kartaa markaad hoosta rabto inaad qoraal ka raaciso sawir. okay, waxaa kale oo jira qaab aad u samaynayso detailska iyo summaryga. marka haddii aad rabto inaad qoraal kooban kusoo koobto qoraal kale oo badan, waxaad samaynaysaa intan ayaad isticmaalaysaa details, kadib detailskan markaa waxaad ku hoos qoraysaa summarygii oo noqonaya isaguna qoraalkii yaraa ee soo koobayay waxaanad rabtay. marka read more aynu nidhaahno, read more information. okay, intaa markaynu qorno waxaynu sameynaynaa paragraph. paragraphkana waxaynu ku qori doonaa lorem, loremkaas oo ka kooban qoraal badan. marka haddii aynu ku noqono browserkii, qaabkan ayuu inoogu soo baxaya. marka read more information waa qaybtii aan summaryga ku qornay ama soo koobidda aan soo khulaasaynay. marka aynu qaybtan yaree saddex geeska ee madow ku dhufanana wuxuu inoo furayaa paragraphkii. paragraphka markaa intan wuu ka badan karaa wuuna ka yaraan karaa, intaad rabto ayaad ku qoraysaa, laakiin muhiimaddu waxa weeye qaab soo koobida markaad samaynayso waxaad isticmaalaysaa isagana qaabkan details iyo summaryga. waxa kaloo aynu samayn doonaa labels, qaabka mataqaanaa selection optionska aad uga dooran karto sheeyo badan midkood. markaa waxaynu odhan karnaa label baynu qoranaynaa. labelka waa qoraalkii hore ee inoo soo muuqan lahaa. choose baynu odhanaynaa, choose a card tusaale ahaan. kadib waxaynu odhanaynaa halkan ayaynu ku qoranaa selectkii. selectigan markaa id iyo waxyaabahan hadda uma baahnin, qaybta stylingka css-ka ayaynu ku arki doonaa. marka halkan waxaynu samayn doonaa optionkii ayaynu qoranaa. option waa qaybtan hoose inoo soo baxday. marka optionka valuega aad ku qoraysaa marka gaariga noociisa ama magaciisa ayuu noqonayaa. tusaale ahaan opel aynu nidhaahno, qaybtan dhexena opel. marka optionkan intaad rabtaa ayaad ka dhigan kartaa. option labaad inoo fur. optionkanna gaarigana aynu nidhaahno bmw, isagana halkan inoogu qor magaciisa. option saddexaad aynu samaysano oo aynu nidhaahno option marka halkan aynu nidhaahno honda tusaale ahaan, halkana honda. marka haddii aynu save garayno oo aynu browserka fiirino, qaabkan ayuu noqonayaa. choose a car, gaari ka dooro halkan. marka optionka wuu yaraan karaa wuuna badnaan karaa. opel baa ugu soo horeeya. markaad optionka qaybtan ku dhufatana wuxuu ku tusayaa waxyaabihii aad ka dooranaysay. bmw haddii aad rabto kan ku geynaya, honda haddii aad rabtona kan ayuu ku geynaya. marka optionka iyo selectigana qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. waxaa kaloo isaguna jira qayb kale oo ah block quote la yidhaahdo. marka block quote-kana sidan ayaa loo isticmaalaa. waa markaad hadal lasoo xigtay ama odhaah ama wuxuun mataqaanay dadka caanka ah ama dadkii hore gabayahanadii ama odhaah caan ah aad qofka soo xigato, qaabkan ayaad iyadana u qoraysaa. marka haddii aynu nidhaahno tusaale ahaan lorem 50 words inooga dhig, kadib inoo save garee. marka qaabkan ayuu soo baxayaa. marka uu ka yara durugsan yahay sidii caadiga ahayd, qayb yar dhinacan isku yar ururinaya. marka waxay macnaheedu noqonaysaa inuu quote yahay waxani. marka qaab kale oo waxaa jira isagana quote-ka loo qoro ama odhaahda. paragraph aad furanaysaa, paragraphkaasaad ku dhex qoraysaa lorem. loremku waa erayo iska uun mataqaana aan macno sameyneyn laakiin meesha inoo buuxinaya. aynu nidhaahno ilaa iyo 10 inoo dheh. 10ka markaa qayb ka mid a haddii aad rabto inaad quote ku samayso, q baad qoranaysaa. q marka qaybta aad rabto inaad ku samayso quote-ka odhaahda dhexdeeda ayaad samaynaysaa. marka intan yar ayaan
Paragraph-ka intan yar ayaa quote inoo noqonaya ama hadal lasoo xigtay. Marka haddii aynu save garayno kala duwanaanshahoodana aynu eegno waa qaabkan. Marka qaybtan yare labada quote inoo saarayn ama labada yare dhibcood ee dusha ka laaban waa qaybtii aynu queueda gelinay. Marka paragraph-kan caadiga ah intan ayaa macnaha hadal lasoo xigtay ama quote noqonaya. Kanna waa marka aad block dhan oo mataqaanaa wada socda aad soo xiganayso. Marka labadan nooc baad soo bandhigi kartaa quote-ka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa qaybo kale oo waxa jira HTML-ka aynaan cashirkii hore kusoo qaadan oo kala ah superscript iyo subscript. Marka iyaguna waxay yihiin halkan ayaynu ku arki doonaa. Tusaale ahaan haddii aynu comment ka bixino oo aynu nidhaahno superscript. Marka superscript iyadana waxyaabaha loo isticmaalo waa sida xisaabaadka oo kale marka aad mataqaanaa samaynayso. Marka haddii aynu nidhaahno tusaale ahaan superscript-gan example-kiisu waxaynu odhanaa paragraph aynu furanaa. Paragraph marka aynu furanno waxaynu samayn doonaa inaynu laba tiro qorno. Tiradan number 9 inoo dheh. Qaybtan ayaynu haddaba furanaynaa. Marka waxaynu odhanaa sub kadibna waa inoo xidhmay. Marka halkan ayaynu gelinaynaa number. Marka qaabkan ayay iyaduna usoo bixi doontaa. Marka waa power of t waa qaybta mataqaanaa xisaabaadka. Tusaale ahaan marka aad square ama power of number kale korka aad ka saarayso qaabkan superscript-ga ayaad isticmaalaysaa. Mid kale oo iyaduna u dhow baa jirta oo subscript la yidhaahdo. Subscript-guna waa taalidigeega oo xaggii ay korka ka ahayd tani power of ay ka ahayd ayay noqonaysaa inaad page-ka ama qaybta hoose ee numberka aad ku qorto. Marka paragraph ayaynu qoranaynaa. Paragraph-ka aynu nidhaahno tusaale ahaan isla kii hore 9 kadibna aynu nidhaahno sub kadibna 2. Marka tusaalahan waa isku mid laakiin kala duwanaanshaha baynu rabnaa inaynu aragno. Marka kanna waa kan mar hoostaas ayuu kaga laadayaa numberkii. Marka dadka xisaabta yaqaano oo kale way fahmi karaan muhiimadda maadaama aynaan hadda xisaab dhiganayn, laakiin waxaan rabun inaan idinku tusiyo waxyaabaha macquulka aad ku samayn karto. Marka kanna waa power of-kii, kanna waa page-kii ama waa markaad mataqaanaa u isticmaalayso number kale hoos dhigayso. Waxa kaloo aynu samayn karnaa tusaale kale oo ah semantic elements-ka HTML-ka oo tusaale ahaan section-na markaa waa iska qaybtaas oo mataqaanaa aad wax kusoo bandhigi karto. H1 aynu nidhaahno ama H3 tusaale ahaan welcome ama title section title aynu nidhaahno section title. Kana paragraph aynu qorano. Paragraph-kana aynu qoraal iskaga buuxsano. Marka section-kuna waa qaabkan waxba kagama duwana sida qoraalka caadiga waa laakiin marka styling-ka aad rabto ayaa targeting-ka tusaale ahaan section aad soo target garaynaysaa marka aad rabto inaad CSS-ka ama qaabka qurxinta iyo waxyaabahaas aad joogto. Marka haddii aad sectionno badan isticmaalayso ID iyo classes ayaad u isticmaali kartaa si ay u kala duwanaadaan. Haddii aad qaarkood rabto inaad midabo kala duwan iyo background kala duwan u kala samayso. Qaybtan waa section title-kii, qaybtan waa paragraph-kii. Marka waxa kale oo isaguna jira oo aan samayn kartaa div laakiin maaha semantic element laakiin waa qaab kale oo isaguna waa iska container oo kale aad content-iga dhex dhigi karto. Haddii aynu isla intan copy garaysano mar labaad dhex dhigno waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jirto oo waa isku mid. Ama aynu mar labaad iska qorano H3 aynu nidhaahno div title qaybtan kalena paragraph aynu iska samaysano Lauren. Marka waxba kuma kala duwana waa isku mid section title iyo div title paragraph mid waliba wadata. Marka kaliya targeting-ka qaabka aad usoo target garaynayso ee container-kaaga u samaynayso ee styling waxyaabaha kuugu jira gudahooga aad ugu samaynayso bay muhiimad tahay way ku qaabeynayaan. Marka div-kuna waa intaas oo wax saawsi badan maaha. Inta badan waxaad arki kartaa isagoo la isticmaalayo div ama sections ama articles ama waxyaabo kale oo badan oo iyaguna semantic elements-ka HTML-ka ka mid ah. Qaybtana waxaan ku arki doonaa HTML styling-ka. HTML styling
waa marka aanad CSS isticmaalayn laakiin aad rabto text formattingka qaabab yaro kala duwan inaad u samayso italic, underline, delete, waxyaabahaas mataqaanaa strong, kuwaas ayaan iyagana halkan kusoo qaadan doonaa oo tusaalaha ugu horeeya. tusaale ahaan haddii aynu paragraph nidhaahno oo aynu Lauren 5-4 inoo dheh, kadibna aynu nidhaahno strongna markaa aynu ku dhex qabanno qoraal yar oo hello oo kale, markaa way ka duwanaan doontaa. waa kan qaybta yare strong inoo mariyay wey kalarka jambudka kaga dhigay. marka strongna waa noocaasa loo isticmaala markaad farta waxoogaa ka yara duwayso kuwa kale caadiga paragraphka sidiisa caadiga. waxaa kaloo isagana isticmaali kartaa italic ama I haddii aan nidhaahno Lauren 5 nidhaahno, kadib wuxuu noqonayaa qaab yaro fartu jiifto oo kale, ay ka yara duwan tahay noocyo kale. marka dhammaantii oo dhan I baan dhex gelinay ama italic, taasina waa taas. waxa kaloo aynu arki doonaa isna qaabab badan baa jira, laakiin waxoogaa un baynu kasoo qaadan doonaa. small oo kale haddii aan nidhaahno Lauren 6 oo aynu halkan small nidhaahno, small markaa waxaynu ku dhex qoranaa qoraalkaas oo ah Lauren 3 inoo dheh 2, kadib save garee waynu arki doonaa. marka waa qaybtan uu yareeyey weeye small, oo fartii kale way ka yar tahay ee caadiga loogu talagalay. marka qaabkaana waad isticmaali kartaa haddii aad rabto qaybo kamid a qoraalka paragraphkaaga inaad small u isticmaasho. marka stylinka ama qaabka aad qoraalkaaga usoo bandhigayso adiga unbay kugu xidhan tahay. waxaa kaloo tusaalahaan isagana ku arki doonaa emphasize oo ah qaab aad yara xaqiijinayso ood qoraalka ku yara adkaynayso. marka Lauren haddii aynu halkan ku qorno qaybtan aynu rabnaa tusaale ahaan inaynu emphasize gelino, qaybtaas aynu rabnaa inaynu emphasize gelino, kadibna baad qoraysaa, kadib intii aad qaadatay ayaad dhex dhigaysaa, kadib browserka ayaynu tagnaa. marka waa intii emphasizeka aynu ku samaynay. marka qoraalkii kale way ka yara duwan tahay. marka emphasizekana isagana qaabkaas aad u isticmaali kartaa, furan iyo xidhan, mid kasta way furmaysaa wayna xidhmaysaa. marka way badan yihiin qaybo badan oo aad arki karta baa jirta, website aad ka baran karto isagoo free baa jirta. marka websiteka ugu caansan ee marka aad bilaabayso mataqaanay aad bilaabayso HTML, CSS ama programming basicskaba, waxaad si fiican uga dhigan kartaa ood ugala socon kartaa website-kan. tusaale ahaan kan aynu dul galno W3 schools baa la dhahdaa, W3 schools. marka haddii aynu W3 schoolska galno, halkan ayaad ka helaysaa waxyaabo badan oo mataqaana HTML ku saabsan. HTML waa kan, CSS maaha, HTML baynu rabnaa, HTML keliya. marka waa kan HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, wax kasta oo programming ku saabsan at least waad ka helaysaa website-kan. marka website-kan waa website aad u wanaagsan oo haddii aad bilow tahay waxyaabo badan kaa caawinaya. marka theory qaybo akhrisa buu leeyahay, qaybo waxa uu leeyahay qoraal ah oo mataqaana kuwan oo kale cashiradii hore ayaynu kusoo aragnay. marka halkanaad si fiican uga baran kartaa haddii aad waxyaabo badan oo dheeraada rabto ood dib baaritaan qoto dheer haddii aad kusii samayso ood practice badan ku samayso, aad buu kaaga caawin doonaa. try yourself baad odhanaysaa, kadib qaybtan waa qaybtii codeka lagu qorayay, qaybtan waa browserkii qaabku uga soo baxayay. marka inaga marna safarigaynu isticmaalnaa, marna Visual Studio Code, laakiin kan labadiiba uu isku ka ag dhigay. oo tusaale ahaan haddii aad paragraph halkan u isticmaasho, waxaad samayn kartaa inaad mataqaanay my second paragraph aynu nidhaahno. okay, aynu soo xidhno. qaabkanaad run baad leedahay, markaad run garayso waa my second paragraph, isla marka aad shaygii dhammaystirto baad halkan kusoo qoray. marka website-kan linkigiisana waxaan ku reebi doonaa description-ka qaybta hoose. waxaad kasii baran kartaa waxyaabo badan oo aynaan kusoo qaadanin course-kan keliya waxaan ugu talagalay inaynu ku aragno waxyaabaha basic ah ee qofka mataqaanay markuu bilowga yahay uu ka bilaabi karo. tusaalahana waxaynu ku arki doonaa qaabka aad u samayn karto progressing ama loading. tusaale ahaan marka aad rabto inaad sawirto qaabka loadingka oo kale, ama file loading
loading a file ama waxaad odhan kartaa downloading progress, download progress. qaabka yare qoraalka aad u samayn karto nooca yare downloading oo kale label ayaynu leenahay. labelka marka halkan waxaynu ku qoranaa download progress, download progress. marka labelkan waa qoraalka yare kasoo muuqanaya waxaan aynu qori doono. marka progress ayaynu leenahay, progress, progress. progresska marka waxaynu u baahannahay inaynu halkan ku qorno qiimaha value-ga uu marayo progressku boqolkiiba 60 aynu nidhaahno. maximumkuna waxay noo noqon doonaa 100 maximum. marka maximumkana aynu ka dhigano 100. marka boqolkiiba 60 ayuu download garaynayaa ama uu load garaynayaa. haddii aynu ku noqono qaybtani documentiga, waa qaybtan download progress. marka waa macna downloadkii socdo oo kale buu kuu sawiraya. haddii aad value-ga bedesho wuxuu noqon karaa 0% haddii aad tiraahdo boqolkiiba eber wax buluuga oo calaamadii kuusoo muuqanaysa ma laha. marka progresskana isagana saas ayaa loo isticmaalaa. boqolkiiba 100 haddii aad tirahdana wuu dhamaystiray. marka progress ama download progresskana qaabkaas ayaa loo isticmaalaa. tusaalahan kalena waxaynu ku arki doonaa footerka oo isaguna kamid ah html semantic elementiga kamid ah. marka footer isagana saas ayaa loo qoraa. footer waad furaysaa waanad xidhaysaa. qaybtan dhexeba markaa waxaad ku qoraysaa wax alla wixii footerka ama qaybta hoose ee website-ku ay noqonayso. imika Visual Studio Code-kan aynu isticmaalno footerkiisu waa intan bluega ah, qoraaladan yar ku qoran yihiin. marka waa qaybta hoose ee website-ka. qaybta sarena waa qaybta navigation-ka ama navka aynu u naqaanayn soo aragnay. qaybtan ayaa isaguna noqonaya qaybtii sare ee navigation-ki ama web pagesku ay ku qornaayeen. qaybtan footerkana isagana sidoo kale waxyaabo badan baa lagu qoraa, laakiin tusaale kooban haddii aynu soo qaadano aynu nidhaahno outer paragraph intaynu furno. outerku markaa aynu nidhaahno at abc master abc aynu nidhaahno. okay, intaa markaynu qorno waxaynu ku xejisiisan karnaa paragraph kale oo ah social media waad soo dhigi kartaa linkiyadoodii, laakiin aynu kasoo qaadano hal mid oo muhiim ah oo emailka ah. marka emailka haddii aad rabto inaad mataqaana emailkaaga ku qortana oo qofka ay si fudud marka uu kala gareeyo uu emailkiisa telefoonka ama pageka uu kaga jiro ama browserka uu kaga jiro isla emailkiisii uu toos ugu tuuro qaybta fariimaha u diyaariyo emailkaagii. waxaad samaynaysaa qaabkan oo kale mail to baad odhanaysaa, kadib waxaad qoraysaa emailkii aad rabtay. marka waxaad odhanaysaa abc tusaale ahaan way wax mataqaanay jira maaha at example.com. marka waxaad halkan ku qoraysaa email us ba waxaad odhanaysaa ama emailkaagii caadigii baad halkan mar labaad ku qori kartaa. haddaad rabto waxaad odhan kartaa email us. kadib waynu eegi doonaa qaabka uga soo baxay browserka. waa kan email us. marka uu qofku klik gareeyo wuxuu toos ugu furayaa qaybtii emailska. qaybtan toos ayuu u keenayaa. marka hadda email iima furna, laakiin haddii uu kuu furan yahay emailkaagii oo ayuu furayaa. kadib wuxuu ku qorayaa qofka loo dirayana wuxuu ka dhigayaa qofka mataqaanay halkan uu emailkiisa ku qoran yahay. marka mail to-duna faa'iidadaas ayay leedahay. haddii aad rabto waad sii badin kartaa oo halkan paragraphka ayaad waxaad ka dhigi kartaa linkiyo sida Facebook oo kale. inaad Facebook https // facebook.com. marka halkan ayaad mataqaana isagana ku qoraysaa. marka user Facebook linkigaaga halkan ku qoraysaa, kadibna halkan waxaad raacinaysaa Facebook. marka aynu eegno halkan kuu soo baxaya Facebook. markaad keli garayso wuxuu kugu tuurayaa si sax aynaan u qorin Facebook. marka saas darteed buu page qaldan inoo geeyey. marka halkan waxaad ku qoraysaa un keliya linkiga meesha aad rabto, ama Facebook buu noqon karaa ama website kalu noqon karaa ama email buu noqon karaa ama Twitter, waxa alla waxaad rabto. marka footerkuna qaabkan ayuu u samaysan yahay.
marka waxaynu arki doonaa qaybaha CSS-ka HTML-ku mar kasta way nala soconaysaa oo marnaba inaga hari mayso inta aynu web development course-ka ku guda jirno. Intaasuman kusoo koobi lahaa qaybtii HTML course-ka oo aynu mataqaanaa waxyaabo hore kasoo hadalnay qaybihii inoo dhinaa. waxyaabo badan oo aynaan kusoo qaadan HTML course-ka ayaa jira, kuwaana waxaynu ku arki doonaa maalinba in un baynu ku arki doonaa ama casharada soo socda ee CSS-ka iyo JavaScript-ka iyo wixii inoo dhiman. marka HTML-ku mar kasta way nala socon doontaa oo inaga hari mayso, laakiin intani waxay noo tahay un fikir guud oo aynu ka qaadanno qaabka HTML-ka ama HTML documentiga loo sameeyo. marka haddii aan soo khulaaseeyo waxyaabaha aynu hadda soo aragnay waa doc type-kii oo cashirkii hore aynu kaga soo hadalnay, meta tagska qaabka loo sameeyo iyo waxyaabaha ay qabtaan, bodyga, headingska, navigationkana maanta aynu qaadanay oo waa qaabka navigationka ama navbarka loo sameeyo. qaybtana waa fig caption ama figurkii, tanna waa tusaalayaasha maanta inagu cusub bay ka mid ahayd. adu kolley guud ahaan intan unbay mataqaanaa iska noqonaysaa waxyaabahaynu aragnay oo ma badna, wax saa usii badan maaha. laakiin haddii aad rabto macluumaad badan oo aad mar kasta rabto inaad wax cusub tijaabiso, website-do ayaynu idinkula wadaagi doonaa free ah oo aad ku baran doontaan qaybaha mataqaanaa HTML-ka aynaan ka arag. laakiin guud ahaan intoodii muhiimka ahayd waynu wada aragnay oo ay ka mid ahaayeen linkiska iyo qaabka sawir loo soo geliyo, qaabka video loo soo geliyo. waxaynu ku arki doonaa marba wax cusub oo kale oo aynaan hore u arag ama aynu hore usoo aragnay oo revision inoo noqon doona qaybaha dambe ee course-ka CSS-ka. marka haddii aad jeceshahay inaad web development-gan hore usii wado oo aad mataqaanaa ka gaadho meel wanaagsan, ku xidhnow mar kasta casharada aynu soo dayn doono. mar kasta cashir cusub ama course cusub ayaan soo diyaarin doonaa oo ku saabsan HTML, CSS, JavaScript iyo qaybaha dambe ee back-endka web development-ga. marka halkaas ayuu nooga sii socon doonaa course-keenu. course-ka kan ku xigana wuxuu noqon doonaa insha allahu CSS iyo qaabka styling-ka. hadda keliya waxaynu sameynaynay uun isaga oo aan wax color iyo wax kala duwanaansho aan lahayn, waa plain text. imika waxay kuwani ku kala duwan yihiin paragraph-kan waxba kagama duwana, waa isku color, waa isku size, waxba kuma kala duwana. marka qaybaha styling-ka ama CSS-ka ayaynu ku arki doonaa noocyo badan oo aad samayn karto oo ka qurux badan, website qurux badan oo dhammaystiran. marka aad iyo aad baan idin salaamaya. haddii aad jeclaan lahayd inaad waxyaabahan barato qaybahan web development-ga ama IT-ga ama programming-kaba, fadlan ku xidhnow, subscribe, like, lana wadaag asxaabtaada. wixii su-aal aad qabto ee aad mataqaanaa ka aragtay course-kan HTML-ka iyo course-yada dambeba, fadlan qaybta commentiga kusoo weydii ama email aan idin qori doono baad iigu soo diri doontaa wixii su-aal aad qabtaan. dhammaantiin waad mahadsantihiin. asalaamu calaykum.